Assalaamu calaykum. 24 bishan aan ku jirno ee Sebtembar 2024 waxaa xukun dil ah lagu fuliyay gobolka Missouri nin lagu magacaabo Marcellus Williams ama Imaam Khalifa. Fulinta xukunka dilka wuxuu dhaliyay hadalhayn badan, wuxuuna hadalhaynta dhaliyay ka hor intii aan la dilin iyo markii la dilay kadib. Muuqaalka maanta insha Allah waxaa kaga hadli doonaa maxaa lagu eedeeyay markii horeba Marcellus Williams, ma wuxuu ahaa qof bariya oo si qalad ah lagu dilay. Marcellus Scott Williams wuxuu dhashay bishii December sanadkii 1968. wuxuu ku dhashay gobolka Indiana. Markii uu gaaray 5 sano ayay qoyskiisa waxay u soo wareegeen gobolka Missouri, wuxuuna ku noolaa magaalada St. Louis ee gobolka Missouri. Marcellus wuxuu ka dhashay qoys faqiiriin ahaa, taasoo keentay in yaraantiisii uu bilaabo inuu daroogada ka ganacsado, sidoo kale uu isticmaalo daroogada uuna noqdo tuug ka qayb qaata dhacyada. 11 August sanadkii 1998 waxaa la dilay haweeney lagu magacaabo Felicia Gale, waxaana lagu dilay gurigeeda oo ku yaalay meel lagu magacaabo City University oo u dhow magaalada St. Louis. Felicia Gale waxay ahayd saxafiyad hore oo 42 jir ahayd. Boolisku waxay ka heleen meydkeeda gurigeeda iyadoo lagu dilay midi. Markii ay booliska baareen goobtii uu dilka ka dhacay oo ah gurigeeda, waxay ka heleen tin, waxay ka heleen faro, sidoo kale waxay ka heleen raad uu ka tagay dilaaga. Markii ay baareenna waa ay waayeen qof kale, waana ay ku adkaatay baarayaasha inay xaliyaan kiiska oo ay ogaadaan qofka uu yahay dilaaga. Muddo markii ay ka soo wareegtay kiiska, wax xalana ay waayeen, waxay soo bandhigeen abaalmarin $10,000 dhan qofkii keena macluumaad keeni kara in dilaagi la soo qabto ama dilaagaba soo sheega. Muddo yar kadib waxaa booliska la hadlay nin lagu magacaabo Henry Cole. wuxuu u sheegay in nin ay xabsiga ku wada jiraan uu u sheegay inuu isagu dilay Felicia Gale. Ninka xabsiga kula jiray ee saaxiibkiisa ahaa wuxuu ahaa Marcellus Williams oo xilligaa u xiraa kiis kale oo dhaca uu ka geystay magaalada St. Louis. Henry ma uusan keenin caddayn kale oo aan ahayn inuu sheegto in saaxiibkiis uu sidaa u sheegay, isagana Marcellus waa uu inkiray inuu waxaas sheegay. Intaa markay ogaadeen baarayaashii, waxay baareen Marcellus Williams, waxayna ogaadeen in Marcellus uu iibiyay laptop laga soo xaday gurigeeda markii la dilay kadib. sidoo kale saaxiibtiisa hore oo lagu magacaabo Laura Asaro ayaa waxay u sheegtay baarayaasha in baabuurkiisa ay ka dhaxeshay boorso ay lahayd gabadhii la dilay oo laga soo xaday gurigeeda habeenkii la dilay. laakiin baarayaasha waxa ay iska indhatireen ayaa waxay ahayd in laptopka uu iibiyo Marcellus ay u keentay Laura. gabadhan ku markhaati furtay ayaa u keentay laptopka. sida saxda ah waxay ahayd in Laura ay weydiiyaan halka ay ka keentay laptopka, laakiin iyada waxba lama weydiin, waxba looma qabsan. Marcellus ayaa lagu eedeeyay kiiska. markii Marcellus uu noqday eedeysanahooda koowaad, waxay isbarbar dhigeen timihii ay ka soo heleen goobta iyo timihiisa, farihii ay ka soo heleen goobta iyo farihiisa, iyo raadkii ay ka soo heleen goobta iyo raadkiisa. intoodana isma aysa yeelan. farihii isma yeelan, tinti isma yeelan, raadkina isma yeelan. waxa kaliya ee u soo haray waxay ahayd laptopkana wuxuu u sheegay in saaxiibtiis ay u keentay. ugu dambeyn 2001 ayaa maxkamad la soo taagay. maxkamadana waxay ku eedeeyday Marcellus inuu dilka geystay, waxayna ku xukuntay xukun dila. waxa kaliya ee caddayn ahaan ay u xogsanayeenna waxay ahayd in 2 qofood ay ku markhaati fureen oo ah Henry Cole, saaxiibkiis ay xabsiga iskula jireen, iyo saaxiibtiisa hore Laura Asaro. intii uu ku jiray Marcellus xabsiga ayuu wuxuu noqday Muslim, wuxuuna la baxay Imaam Khalifa, wuxuuna noqday imaamka muslimiinta xabsiga uu ku jiray. 2015 ayaa loo balansanaa in lagu fuliyo xukunkii dilka ahaa, laakiin maxkamadda sare ee gobolka Missouri ayaa kiiska dib u dhigtay kadib markii ay racfaan qaateen qareenadiisa, waxaana dib loogu dhigay xukunka fulintiisa 2017. mar kale ayaa la joojiyay xukunkii dilka ahaa dhowr saacadood ka hor intii aan lagu fulin, waxaana joojiyay gudoomiyihii gobolka xilligaas oo lagu magacaabo Eric Crichtons. sababta oo waxaa soo baxay cadeymo DNA. cadeymaha DNA-ga waxay ka heleen mididii dilka lagu geystay, wuxuuna noqday DNA-ga dacwad oogihii kiiska 20 sano ka hor. wuxuuna qirtay isagoo maxkamad jooga in midida uu gacantiisa ku taabtay isagoo gloves wadan 5 jeer, taasoo keentay in DNA-gii dilaaga uu tirmo oo DNA-giisa laga helo. sidoo kale wuxuu qirtay in kooxda xeerbeegtida mid ka mid ah uu ka saaray sababta oo wuxuu ahaa madow. gudoomiyihii gobolka markii uu joojiyay wuxuu sameeyay koox baarayaal oo ka kooban baarayaal iyo garsoorayaal hore.
wuxuuna ku amray inay kiiska baaraan oo ay ugu dambeyn natiijo kama dambaysa ka soo saaraan in Marcella dilka lagu eeday uu sax yahay iyo inuusan sax ahayn oo uu bari yahay. sanadkii xigay 2018 waxaa loo doortay gobolka gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Michael Berson. Michael Berson wuxuu ahaa askari hore wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga, xisbiga uu ka tirsan yahay Trump ee cunsuriga ah. Michael sanadkii hore ayuu wuxuu kala diray kooxdii baarayaasha ee gudoomiyihii hore uu u xil saaray inay kiiska soo baaraan, wuxuuna kala diray ka hor intii aysan jawaab soo saarin, wuxuuna amray sidoo kale in dilkii dib waqti loogu qabto. bishii July sanadkan ayay kooxdii qareennada waxay tageen maxkamadda gobolka Missouri, waxay isku dayeen inay joojiyaan xukunka dilka ama ugu yaraan inay xukunka dib u dhigaan intii ay cadeymo dheeriya ka keenayaan, laakiin waa ay diiday maxkamadda ugu sareyda gobolka Missouri. sidoo kale waxay dalab u dirsadeen maxkamadda sare ee Mareykanka inay kiiska furto, maxkamadduna waa ay soo diiday. gudoomiyaha gobolka Mike Bersonna waa uu diiday inuu dib u dhigo xukunka, wuxuuna amray in xukunka la furiyo. 12 July sanadkan 2024 ayaa waxaa loo qabtay ballan xilliga la dilayo Williams, wuxuuna ahaa waqtiga loo qabtay 24 September 2024. kooxda qareennada waxay isku dayeen inay kiiska joojiyaan, laakiin uma aysan suurtagelin. 24 September dhowr maalin ka hor ayaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa, waxaana lagu dilay xabsiga gobolka Missouri saacadu markay ahayd 6 maqribnimo ama 12 maqribnimo. dardaarankiisii ugu dambeeyana wuxuu ku qoray warqad waxayna ahayd all praise be to Allah in every situation. mahadoo dhan Allah ayay u sugnaatay xaalad kasta. Allah u naxariisto Marcella Williams ama Imam Khalifa. ma uusan ahayn Marcella Williams qofkii ugu horeeyay oo isagoo bariya lagu dilo waddanka Mareykanka, mana noqon doono qofkii ugu dambeeyay. waxaa jira dad aad u tiro badan oo muddo dheer xabsiyada ku jiray Mareykanka, qaarkood la dilay, qaarkood la sii daayay muddo dheer kadib oo iyaga dhan bari ahaa. xataa waxaa jira qaar ilaa iyo maanta ku jira oo bariya oo ay caddahay inay bari yihiin oo ay dilalka geysan. laba tusaale haddaan soo qaadano, isla gobolka Missouri isla sanadkan gudihiisa dhowr bilood ka hor waxaa xabsiga laga sii daayay gobolka Missouri nin lagu magacaabo Christopher Dunn. Christopher waxaa la xiray sanadkii 1990 waxaana lagu eedeeyay inuu dilay nin. xilligaas caddaynta ay ku hayeen keliya waxay ahayd waxaa ku markhaati furay inay arkeen isagoo dilka geysanaya laba cunug oo yaryar oo 12 jir iyo 13 jir ahaa xilligaas. markii ay weynaadeen isla sanadkan ayay ka laabteen hadaladii ay dhaheen, waxayna sheegeen inaysa arag. 34 sano wuxuu xabsiga ugu jiray dil uusa geysan. dhowr bilood ka hor ayaana laga sii daayay xabsiga. sidoo kale waxaa jirta haweeney lagu magacaabo Sandra Hemi. Sandra Hemi waxay ku jirta xabsiga 43 sano. 2 bilood ka hor ayaa xabsiga laga sii daayay iyadana markii ay caddaatay kadib inay bari tahay oo aysan geysan dilkii lagu eedeeyay. markii ay dhumiyeen cimrigeedii intii ugu wanaagsaneed iyadoo waayeela ayay xabsiga ka sii daayeen. sidoo kale waxaa jira nin lagu magacaabo Robert Robinson. ninkaas waxaa loo ballansan yahay in la dilo 17 bisha Oktoobar isla sanadkan dhowr maalin kadib gobolka Texas. isagana waxaa lagu eedeeyay inuu dilay gabadhiisa 2002, laakiin dib ayay ka ogaadeen in gabadha ay xanuunsaneed oo si caadi ah ay u dhimatay ee isaga uusan dilin. waxaana qirsan inuusan gabadhiisa dilin dambi baarihii ku eedeeyay dilka xilligaas iyo dhaqaatiir baaray xaaladda gabadha markii ay dhimatay kadib. sidaasoo ay tahay oo dambi baarihii leeyahay qalad ayaan sameeyey oo ninkan dilka ma uusan geysan, dhaqaatiirtuna ay caddaynayaan in gabadha si caadi ay u dhimatay oo ay xanuunsaneed, haddana wuxuu ku jiraa xabsiga wuxuuna sugayaa in la dilo. xukunkiisa lagama laaban. dadkaas aan tusaale ahaanta usoo qaatay waxay qayb ka yihiin dad aad u tiro badan oo si dulmi ah xabsiyada ugu jira ama xabsiyada ugu jiray ama la dilay ama dilal sugaya waddanka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Missouri. gobolkaas waa gobol nidaamkiisa cadaaladda uu qariban yahay. gobolka Missouri waa gobolka ugu badan ee dadka degan ay ku jiraan xabsiyada. tusaale ahaan 100,000 oo qof oo kasta oo degan gobolka Missouri 713 qof oo kamida waxay ku jiraan xabsiyada. marka loo barbar dhigo gobolada Mareykanka ee soo haray oo dhanna waa 614. gobolkaas kaligiis ayaa ka badan gobolada Mareykanka oo dhan. markii la barbar dhigo waddan sida boqortooyada Ingiriiska oo
kale waa 144. gobolka Missouri kaligiisna waa 713. sidoo kale wuxuu leeyahay gobolkaas sharci la yaab leh. waa gobolka kaliya ee Mareykanka haddii qof ay cadaato inuusan dambi geysan aan laga sii deynin xabsiga ilaa haddii uu ku xukuman yahay dil maahane. haddii uu ku xukuman yahay dil waa la sii deynaa, laakiin haddii uu ku xukuman yahay xukunno kale sida xabsi daa'in 40 sano 50 sano 60 sano ayna cadaato inuusan dambigaas geysan lagama sii deynayo xabsiga. Marcellus Williams wuxuu ahaa qofkii saddexaad ee lagu fuliyay xukun dila gobolka Missouri sanadkan aan ku jirno ee 2024. wuxuuna ahaa qofkii 11aad ee xukun dil lagu fuliyo intii uu gudoomiye ka yahay gobolka Mike Pearson. wuxuu ahaa sidoo kale qofkii 100aad ee lagu dilo gobolka Missouri tan iyo markii gobolka Missouri uu dib u bilaabay inuu fuliyo xukunada dilka sanadkii 1976. wuxuu ahaa sidoo kale qofkii 15aad ee xukun dil lagu fuliyo guud ahaan Mareykanka sanadkan aan ku jirno ee 2024. mar kale waxaan leenahay Allah u naxariisto. muuqaalkeena maanta intaas uu ku egyahay tan iyo kulante dambe waxaan idinkaga tagayaa amaana Allah.